nibba hale moro batalila Aga mama gurracha garangarba Ukicha maganibba hale moro batalila nidaamyadii qarniyadii hore ee ilbaxnimada ilmaha reer Kuush fahanka uunka alle iyo ku shukrinta awoodda alle iyo galladihiisa wax walba oo kownka aan ku nool nahay ka dhacaya inay awoodda alle ku dhacayaan fahanka guud ee dadkaasi xilligaasi jiray ay haysteen makhluuqa oo dhan inay rabbigooda adeecaan oo addoonsiga alle ay ku samraan waa mid maanka iyo garaadka bini'aadanka oo dhan ay ka siman yihiin oo qarniyo walba la joogo la fahansan yahay ilmaha reer Kuush ee qarniyada badan ku noolaa agagaarka webiga Niil waxay lahaayeen caadooyin iyo dhaqamo ay rabbigooda ku garowsadaan ay ku caabudaan galladda uu alle u galayna ay ku mahadceliyaan munaasabadda Ireeja ay ka midka ah nidaamka gada waa taariikh soo jireen ah oo qarniyo badan soo jiray taariikh dhaqan iyo bulsho ahaanba jilba jilka ka dambeeya isu soo gudbiyeen isla markaana ilaa iyo hadda lagu mahadceliyo oo ay leeyihiin bulsho badanta qoomiyadda oramada dhaqamadii iyo taariikhdii reer Kuush ilaa hadda jira qoomiyadda sidooda u soo xafiday waxaa ka mid ahaa qoomiyadda oramada oo shacab ahaan iyo baaxad ahaanba dalkan Itoobiya kaalinta koobaad kaga jira reer Kuush nidaamka ay xilliyadaasi hore ay rabbigooda ugu mahadcelin jireen maantana waa kuwa jira oo ka dhex muuqda qoomiyadda oramada oo si ballaadhan loo xuso munaasabadda Ireeja ee faraca nidaamka gada Aga mama gurracha garangarba Ukicha maganibba hale moro batalila ፈጣሪን የሚያመሰግኑበት waa munaasabad ilaahay loogu mahadcelinayo roobkii daadihii iyo waqtigii roobka badnaa allihii sida nabadda ah inooga soo saaray ee waqtigan quruxda badan ina soo gaarsiiyey waa xilliyadii iyo munaasabadihii loogu mahadcelin lahaa goobta munaasabadan lagu xusayana mahadnaq ayaa loo aadaa Ireeja ማለት ጥንካሬ ነው ሰላምን ነው ፍቅርን ነው Ireeja macnaheeda waa mahadnaq sidoo kale waa nabadgelyo kalgacayl waa cafis macno badan ayuu leeyahay biyaha iyo cawska goobta lagu xusayana waxay la macno tahay barwaaqada bulshada oramada nabad ay jecel yihiin iscafiska iyo heshiiska ay aad u jecel yihiin maadaama xilligii aadka u dhibka badna ilaahay naga soo saaray waanu mahadcelinaynaa Aga mama gurracha garangarba Ukicha maganibba hale moro batalila nidaamka gada waa nidaam ay qowmiyadda oramada ku dhaqmaan oo taariikhda iyo dhaqanka oramada astaan iyo saldhig u ah gada waa nidaam dimuqraadiyadeed oo dhaqamada iyo taariikh badan hal goob iskugu keenaya oo qowmiyadda oramada ay u hoggaansamaan wuxuuna nidaamkan cajiibka ah muujinayaa silsiladda taariikheed ay qowmiyadda oramada leedahay taniyo waagii jiritaanka qowmiyadda oramada la ogaaday ilaa iyo maanta qorayaasha taariikhda iyo odayaal dhaqameedka qowmiyadda oramada ayaa sheegaa nidaamka dhaqanka iyo taariikhda aysan ku dabaqnayn nidaamka gada inuu yahay mid aan buuxin oo aan dhammaystirnayn oo qabyo ah waxayna tusaale ahaan u soo qaataan noole aan lafa lahayn oo kale አንዱ የገዳ ኢንስቲትዩሽን ሆኖ በአጠቃላይ የኦሮሞ ሕዝብ ከጥንት ዘመን ጀምሮ Ireeja waa mid ka mid ah munaasabadaha nidaamka gada shacabka oramada waa nidaam ilaa qarniyo badan ay eebbe ugu mahadcelinayaan sidoo kale waa la isku cafiyaa shacabka kala maqnaa ayaa iskugu imanaya dadka isdagaalayna way ku heshiinayaan oo way iscafinayaan alle roob ayuuna siiyey roobkuna beeraha iyo xoolaha ayaa lagu waraabiyey taasoo nolosha bulshada iyo taranka sii wadaysa marka taasina ilaahay ugu mahadcelino oo nagu shukrino waa waajib cid walba saaran Aga mama gurracha garangarba Ukicha maganibba hale moro batalila
ciidaha iyo munaasabadaha hoos yimaada nidaamka gada ee qoomiyadda oromada agteeda aadka ugu weyn sida ballaadhanna loogu dabaaldego waxaa ka mid ah xuska Irrecha. Irrecha waxaa laga wadaa galata ama macnaheedu ay tahay mahadnaq. shacabka qoomiyadda oromada si ay gebi ahaantoodaba ugu mahadceliyaan meel walba oo ay daafaha caalamka kaga sugan yihiin ayay iskaga yimaadaan. munaasabadda xuska Irrecha macno kala duwan ayuu leeyahay ayada oo lagu salaynayo goobaha kala duwan. dhanka gobollada Hararge ama Faanqallo Darara macno leh ayuu sidaa. dhanka goobaha ay ku sugan yihiin qabiilka loo yaqaano Tulama Oromo Irrecha ayaa looga yaqaanaa. goobaha qaarkoodna Irrecha ayaa laga dhahaa. waana munaasabad lagu xuso goobaha harooyinka iyo goobaha buuraleyda oo sanadkii 2 jeer ayaa la xusaa. siraatu ya malka ya ba malkano እና እሱ ነው ምርቃቱን ጀምሮ ምርቃቱን ከጨረሰ nidaamka Irrecha waxaa duco ku furaya odayaal dhaqameedka loo yaqaano Abaamalka. marka uu Abaamalka dhameeyo ducada, abaagada ayaa ku xigaya. ducada markay odayaasha dhameeyaan, munaasabadda Irrecha ayaa loo gudagelaya. markaas mahadnaq ayaa la bilaabaya iyo ducooyin iyo sidoo kale inuu qofka sanadka dambe khayr rajeeyo. marka la gaadho xuska munaasabadda Irrecha, qof walba inta uusan goobta imanin ayuu wax walba oo nacayb iyo cuqdad calooshiisa ku jirta ayuu iska nadiifiyaa, wuxuuna ku bedelaa wanaag iyo cafis. waxaana si wada jira munaasabadda loo xusaa ayada oo la isku calool furan yahay oo wanaag iyo kalgacayl bulshada ay ka dhaxayso. Irrecha waa munaasabad ka turjumaysa midnimo, kalgacayl, ixtiraam, nabadgelyo iyo mahadnaq mid ay ku dheehan tahay. xilli roobaadkii, duufaanihii iyo daadadkii jiray marka laga soo gudbo oo dhulka uu qariyo dhir wada cagaaran, markaas ayay qoomiyadda oromada isku soo baxaan ayaga oo ku labisan dhar kala duwan oo ka turjumaya dhaqanka qoomiyadda oromada si ay uga qayb galaan munaasabadda weyn ee Irrecha ayada oo lagu luuqaynayo heese kala duwan oo munaasabadda ka turjumaya islamarkaana ilaahay loogu mahadcelinaya maadaama nimcooyin kala duwan uu Alle ku manaystay. ጥላቻን እንኳን ጥላቻውን ትተው ሁሉም ሰው ተቀራርበው ተቃቅፈው nacaybka iyo xumaanta qof walba wuu iloobayaa maalinkaas Irrecha la xusayo. qof walba cafis iyo kalgacayl ayuu midba midka kale laabta ku gelinaya oo farxad ayaa lagu wada xusaya. Waaqa uumama gurraacha garaan garba Bukicha maqaan nibbaa halee moroo bataliila bilaha la xusaya munaasabadda Irrecha ka hor, maadaama tawagga iyo webiyada ay buuxdaafiyaan qoysaska iyo qabaa'ilka qoomiyadda oromada muddo badan ayay kala fogaayeen. xilliyada Irrecha la xusayo ayay isku yimaadaan oo mar kale ayay midoobaan oo midnimadooda ay muujiyaan, taasoo munaasabadda Irrecha camiraysa oo ka dhigaysa mid qurux badan oo indhaha iyo maanka caalamka soo jiita. munaasabadda Irrecha maadaama la xuso bisha ugu horreysa ee sanadka bilowgiisa, cid walba si wanaagsan ayay u sugtaa. Irrecha በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ትልቁ ክብረ በዓል ነው። ይሄ ክብረ በዓል እንግዲህ የወቅቶች በሚለዋወጡበት ጊዜ xuska munaasabadda Irrecha waa munaasabadda ugu weyn ee qoomiyadda oromada ay xusto. munaasabadan xilliyo kala duwan ayaa la xusaa. hadda waxaan ku jirnaa xilli aan ka soo baxnay xilli roobaadkii oo xilligii oo dhulka cagaarka noqonayay, xooluhuna ay dhargayeen, bakaaraduna ay raashin iyo dalagga beeraha ka buuxsamayeen ayaan ku jirnaa. nimcooyinkaasi in ilaahay loogu mahadceliyo ayaa Irrecha loo xusaya. muhiimaddu ayada oo ay tahay in ilaahay loo mahadceliyo, haddana shacabka ayaa iskugu imanaya oo ku kulmaya. walaalaha way ku wada xaajoonayaan maadaama shacabka tugaga buuxdhaafiyey iyo isu socodka iyo booqashada qoysaska iyo qabaa'ilku ay adag tahay. marka webiyada ay buuxdhaafiyaan waxay isku imanayaan xilliyada webiga ay biyaha yaraadaan. markaasi ayaa laisku imanayaa oo la iswaraysanayaa. dhalinta aan guurka soo marinna goobta ay calafkooda ka raadsanayaan. Waaqa uumama gurraacha garaan garba Bukicha maqaan nibbaa halee moroo bataliila Waaqa uumama gurraacha garaan garba Bukicha maqaan nibbaa halee moroo bataliila
ilaahay maadaama uu roob bilaashah siiyey sidoo kalena roobkii da'ay maadaama beeraha iyo xoolaha u waraabiyey oo nimcooyin uu alle siiyey dhulkana dharag iyo barwaaqo uu ka dhigay intay isu soo baxaan ayay si weyn ilaahay ugu mahadceliyaan yaa waqaa tolchaa bobbaa fi galii gurraacha garaa garba tokkichaa maqaa dhibba ilaahayga awoodda leh iyo erayo noocaas ah ayay ilaahay ugu mahadceliyaan ኢሬቻ ሰላም ነው፣ የሀገር ሰላም ነው፣ የኦሮሞ ምንነት ነው። ኢሬቻ wuxuu si cad kuu tusayaa dadka Oromada taariikhdooda iyo dhaqankooda sidoo kale nabadda iyo isku soo dhawaanshaha bulshada door weyn ayuu ka qaadanayaa midnimada bulshada Oromada ayuu muujinayaa nidaamka gada ayuu qeexayaa waayo malaayiin shacab ayaa isku iimanaya xuska Irecha Oromada hormuud ha ka ahaato mooyaane cid walba ayaa xusi karta Irecha saan hore u soo sheegay waa mahadnaq kalgacayl iyo nabadgelyo waa wadajir qoomiyadaha dalka oo dhan si wadajir ah u xusayaan qoomiyadaha Sidaama way ka soo qayb galaan xilliyada soo socdana waan wada xusaynaa marka qoomiyad walba way xusi kartaa qoomiyadda Oromada qarniyadii ay soo jireen taariikhdooda iyo dhaqankooda ayay jiilka ka dambeeya si wanaagsan ugu soo gudbiyeen oo halka uu maanta taagan yahay ayay soo gaadhsiiyeen maalinka la xuso Irecha odayaal dhaqameedka baagadaha ayaa goobta marka ugu horeysa ka duceeya hogaamiye dhaqameedka beelaha marka ducadooda ay dhameeyaan waxaa xigaya in bulshada qaybaheeda kala duwan ee munaasabadda ka soo qayb gashay ee dharka kala duwan ee qurxoon ku soo labistay ay ilaaliyaan nidaamka munaasabadda waxayna bilaabayaan inay u mahadceliyaan Ilaahay ayagoo gacmahooda ku sida caws qoyan iyo ubax oo biyaha goobta marba daraya maadaama cawska qoyan iyo biyuhu ay barwaaqada ka tarjumayaan ኦሮሞ ከማንም ጋር መኖር የሚችል ከማንም ጋር ተዋልዶ ተገናኝቶ መኖር የሚችል ህዝብ ነው shacabka Oromada cid walba ay la noolaan karaan qoomiyad walba ay isbuursadaan waa isdhaleen wayna la wada nool yihiin dalka iyo dibaddaba qoomiyadaha dalka oo dhan ayay xiriir gaar ah leeyihiin qoomiyadda Oromada dhaqanka Oromada iyo nidaamka gada waxaa ku jira in qofka ilmo uusan dhalin sida ilmihiisa oo kale uu u korin karo hadhowna dhaxal qaybsiga uu soo geli karo marka waa shacab waxa ay haystaan dadka la wadaagi kara oo la qaybsan kara Akka uumama gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Akka uumama gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila nidaamka gada waxyaabaha iyo goobaha aadka looga tixgeliyo waxaa ka mid ah goobaha lagu cibaadaysto ee xarumaha diinta dhaqanka Oromada goobaha diimaha iyo shacabka waxaa maamula odayaasha hogaamiye diimeedka goobaha lagu xusayo munaasabadana waxaa go'aamiya waa hogaamiye diimeedka iyo odayaal dhaqameedka qoomiyadda Oromada markay dhibaato ay ku dhacdo dacwadooda iyo cabashooyinkooda halkii ay dadka u sheegi lahaayeen waxay u gudbistaan Ilaahay munaasabadda Irecha marka la xusayo hadallada iyo halkudhigyada goobta lagaga dhawaajinayo waxaa ka mid ah in Ilaahay goob walba nabad iyo barwaaqo ka yeelo sanadkiisana nabad iyo caafimaad ku gaadhsiiyo ayagoo Ilaahay u shukrinaya oo oranayo mareeho Akka uumama gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Akka uumama gurraacha garaan garba
Ukicha maganibba hale moro batalila የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ብሔር ለበርካታ ዘመናት ዋጋ በመክፈል ያቆየ በዓል ነው። munaasabadda Irecha waa xus ay qoomiyadda Oromada sanado badan ay xusayeen oo ay halkan soo gaarsiiyeen walow dhibaato badan iyo caqabado badan ba ay jireen. Munaasabadda shalay uun iskama imanin. Juhud iyo halgan weyn ayaa loo soo maray, dhiig badan ayaa loo daadiyey, naf badanna waa lagu waayey si halkan loo soo gaarsiiyo. Taasi si wanaagsan ayaan u fahansanahay. Aqoonsi ixtiraam weyn ayaan u haynaa in munaasabad weyn ay tahay oo halkan lagu soo gaarsiiyey. qoomiyadda Oromada khibrad nooleedka ay ka dhaxleen nidaamka soo jireenka ah ee Gada waxa had iyo jeer walwalgeliya oo agtooda aad u weyn waa xoolahooda xilliga la xusaya munaasabadda Irecha maadaama dhulka banka ah dooxooyinka iyo buuraha ay wada doog iyo dhir ay noqdaan waxay foofiyaan oo ay daaq geeyaan wixii xoolo ay haystaan maadaama dadka miyiga degan dunyadooda iyo dheeftoodaba ay xoolaha ku salaysan yihiin wax walba oo xoolaha ay u baahan yihiinna way u sameeyaan maadaama ay xoolahooda la leeyihiin xidhiidh gaar ah oo qiimo weyn agtooda ugu fadhiya qoomiyadda Oromada nidaamka ugu weyn ee dhaqankooda caadooyinkooda taariikhdooda iyo qaab nololeedkooda ay ku soo bandhigaan ee nidaamka Gada inuu yahay ayaa la rumaysan yahay nidaamka Gada maadaama uu yahay mid dhammaan bulshada isku soo dhaweynaya oo loo wada dhan yahay qof walba nidaamkan ayaa lagu maamulaa oo lagu hogaamiyaa Irecha waxa uu ka mid yahay munaasabadaha la xuso ee ka midka ah nidaamka Gada Irecha waa sumad iyo calaamad gaar ah oo lagu yaqaano bulshada Oromada Oromoon irreessa bakka lamatti addaan qoodee laala tokko irreessa tulluuti irreessa tullurratti irreeffatu akkaataa irreeffata lama immoo irreessa malkaati qoomiyadda Oromada Irecha laba nooc ayay u xustaa mid waa marka lagu xusayo buuraha dushooda oo loo yaqaano Irreessa Tula midna waa midka lagu xuso goobaha harooyinka iyo webiyada ee loo yaqaano Irecha Malka tan lagu xusayo buuraha dushooda waa allabari iyo ducooyin taasi oo la xusayo marka roob la'aan ay dhacdo ama abaara ay soo noqnoqdaan ama dhibaatooyin uu dalka ka dhaco ilaahay ayaa la bariyaa oo dhibaatada si uu bulshada uga qaado midda kale ee webiyada iyo harooyinka agteeda lagu xusayana ee loo yaqaano Irreessa Malka waa mid mahadnaqa shacabka Oromada allabariga iyo ku xamdinta nimcooyinka alla siiyey qiimo weyn ayay agtooda ku leedahay markii uu qofka ducaysto alla ducadiisa ayuu aqbalaa webiyada biyaha ayaa ka buuxsama beerihii si wanaagsan ayay u baxaan xoolihii ayaa dhargaa nimcooyinkaasi alla ina siiyey Irecha marka la gaadho ayaan alla ugu mahadcelinaynaa oo aan ku shukrinaynaa Irecha ክረምት ብዙ ነገሮች ይዞ ነው የሚሄደው መብረቅ አለ ወዝ ሙላት አለ Irecha marka la gaadho roobkii ayaa joogsada dhibaatooyinkii xilli roobaadka jiray oo dhan ayaa guura togagii aadka u buuxdhaafiyey ee laga baqayay inay dadka iyo xoolaha qaataan iyo hantida ayaa kala yaraada sababtoo ah webiyada markii ay buuxsamaan cid ka tallaabi karto ma jirto dadku go'doon ayay gelayaan Irecha marka la gaadho bulshada waa cusub ayaa u bariyay dadkii kala maqnaa oo dhan ayaa isku imanaya oo is arkaya xoolihii daaq ayay u foofayaan marka ilaahay ayaa loo mahadcelinayaa maadaama bulshada ay indhahaysa saareen ay nimcooyin ay heleen Akka uumama gurraacha garaan garba Ukicha maganibba hale moro batalila Akka uumama gurraacha garaan garba Ukicha maganibba hale moro batalila nidaamka Gada markay odayaal dhaqameedka baagadaha garta goynayaan ama ay xukunka ridayaan geedka ay hoos fadhiistaan ee munaasabadda gargoynta lagu qabanayo waxaa loo yaqaanaa Oda ama geedka weyn ee hooska leh ee Soomaalidu ay u taqaano geedka bardaha wax walba oo odayaal dhaqameedka ay ka wada xaajoonayaan geedkaas hoostiisa
ayaa la iskugu yimaadaa. Irreecha waa munaasabad aad u weyn oo nabadda iyo kalgacaylka ay bulshada isku faraan. qofka asagoo uurkiisa xumaan iyo cuqdad ay ku jirto munaasabadda irreecha ma xusi karo. waa inuu qofka caloosha waxa qofka kale ugu hayo iska soo saara oo iska soo nadiifiya isla markaana la iscafiyo. haddii aan sidaas la samaynin qofka oo xumaan calooshiisa ku jirta haddii uu munaasabadda ka soo qayb galo ducadiisa iyo mahadceliskiisa inaan la aqbalaynin ayaa la rumaysan yahay. ኢሬቻ በዓል ያው የሰላም የአብሮነት የመፈቃቀር የመተጋገዝ irreecha waa munaasabad kalgacayl is-ixtiraam cafis iyo wanaag nabadgelyan ay ku dheehan tahay. sanadkii la soo dhaafay oo dhan shacabka xidhiirka alle ay la leeyihiin wixii xumaan ay sameeyeen ay cafis ku weydiisanayaan. rajada mustaqbalkana ay u tala saaranayaan oo wanaag ayay rajeynayaan. nimcooyinka alla siiyeyna way ku mahadcelinayaan. bulshada dalkuna waa munaasabad isku soo dhoweynaysa. Akka uumamaa gurraacha garaan garba Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Akka uumamaa gurraacha garaan